بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي هو عباس محمد وحان هاي دكتور كنور هولند. كسو دوادا برنامج كيني عافماتك دالمر. maanta waxaan ka hadlaynaa mowduuc aad iyo aad muhiim u ah. waxaan ka hadlaynaa xanuun ka mid ah xanuunada dhimirka oo loo yaqaano shoogga iyo naxdinta laga qaado marka qofku uu arko dhacdo aad iyo aad u naxdin badan. markuu qofku ama la kulmo ama isaga ay ku dhacdo waxaa jirta shoog iyo naxdin qofka baaqi ku noqonaysa oo ku haraysa. xanuunkan waxaa afka qalaad loogu yaqaanaa PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. waa xanuun daraasad fara badan lagu sameeyay oo lagu arkay askar fara badan oo Mareykanka ah oo ka soo laabatay dagaaladii Ciraaq iyo Afghanistan. laakiin xanuunkan kuma dhaco askarta dagaalka ka soo noqoto qura. marar fara badan buu ku dhacaa shacabka ayaguna la kulma dhacdooyin naxdin leh, ama ha noqoto goob dagaal, ama ha noqoto shil baabuur, ama ha noqoto kufsi, ama ha noqoto dhacdooyin kale oo naxdin leh. marka marar fara badan dad badan oo shacab ah ayaa waxa ay la kulmaan in ay markhaati ka noqdaan amaba iyaga ay ku dhacdo lafahantooda arrin dhacdo aad iyo aad u naxdin badan. dhacdadaas marka qofka ay ku dhacdo waxa ay sababaysaa in wixii qofka madaxiisii ay ka bixi waayaan. xanuunkaas aynu maanta ka hadlaynaa, shoogga iyo naxdintaas loo yaqaano, afka qalaadan loo yaqaano PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. muxuu yahay iyo ku dhacaa, waa maxay calaamadaha iyo astaamaha lagu gartaa, sidee baa loo baadhi karaa iyo maxaa lagu daweeyaa. xanuunkan shoogga iyo naxdinta qofka baaqiga ku noqonaya ee uu ka qaadayo dhacdada waxa inta badan uu qofka ku dhacaa marka qofku dhacdo naxdin leh uu la kulmo, oo mitaal ahaan kufsiga iyo faraxumeynta. haddii qof dumar la kufsado ama la faraxumeeyo, dhacdadii shoog bay ka qaadaysaa. muddo badan oo arrintii falkii foosha xumaa ka dambeysay ayaa arrintii ay madaxeeda iyo fikirkeeda iyo maskaxdeeda dib ugu soo noqonaysaa. waxaa kale oo ku dhacaa dadka xarbi ahligiimka Soomaaliya ka dhacay sanadihii u dambeeyay oo dhan, qofka ama bam uu ku qarxo ama arka dad lagu laayay rasaas iyo madaafiic iyo miino dad ay la kacday oo kale, qofkuna dhacdadaas naxdinta marka uu la kulmo ee dhiiga iyo geerida iyo qof dhimanayo arkayo, waxay ku noqonaysaa waxaan madaxiisa ka baxaynin. waxaa jirta dhacdooyin aan goob dagaal ahayn oo aan la isu adeegsanaynin rasaas iyo madaafiic. maalan qof meherad lahaa ama gurigiisa joogay oo dad burcad oo hubaysani intay u yimaadaan ay bastoolad ama qori madaxa kaga qabtaan oo markaa hantidiisii ay ka qaadaan. qofka taasoo kale ay ku dhacdo waxay ku noqonaysaa shoog weyn iyo naxdin weyn oo aan madaxiisa hadhowto aan ka bixin. waxa kale oo iyaduna ay ku dhacdaa xanuunkan uu ku dhacaa dadka iyaguna cunfi ama dhibaatooyin badan ay ka soo gaadhaan masiibooyinka dabiiciga ah oo ay ka mid tahay maalan dhulgariirka, duufaanada, masiibooyinka dabiiciga ah. haddii ay dhacaanna dadka badankooda xanuunkan shoogga iyo naxdinta leh baaqiga ku noqonaya wuu ku dhacaa. waxa kale oo uu ku dhacaa xanuunkan shoogga iyo naxdinta lihi ee qofka ku haraya dadka la afduubo. haddii qofka bini aadamka la afduubo oo xorriyadda laga qaado oo qofkii intaa la haystaha uu yahay ee afduubka uu dad gacanta ugu jiro, mar walba daqiiqad kasta ay madaxiisa ku soo dhacayso. hadda ayaa lagu dilayaa, iminkaa lagu tooganayaa, hadda qoorta lagaa goynayaa. qofkaasna waxaa ku dhacaa xanuunkan PTSD-ga ama shoogga iyo naxdinta baaqiga qofka ku noqonaya. marka dhacdooyinkaas ama dagaalka, faraxumeynta, kufsiga, qofka shakhsi ahaan la dhaco ama afduub lagu sameeyo, iyo qofka oo la soo kulma shil baabuur ama shil diyaaradeed, dhacdooyinkaas ayaa sababa in qofkii dhaxlo oo ay baaqi ku noqoto cabsi iyo naxdin mar walba ku jirta madaxiisa iyo xiskiisa iyo fikirkiisa. asbaabo kale way jiri kartaayo qofka ku keeni kartaa xanuunkan oo kale, oo ay ka mid tahay maalan jirdilka, bahdilka. iyaga laftoodana mataqan way sababaan, inkasta oo ay u sii badan tahay iminka dhacdooyinkan aynu soo sheegnay
dagaalada iyo afduubka iyo kufsiga iyo faraxumeynta iyo qof burcad hubaysan ay dhacayso oo kale iyo kuwaas ugu badan laakiin bahdilka muddada dheer ah jirdilka muddada dheer ah iyo tortureka iyaguna way keenaan xanuunkan way keenaan waa hagaag maxay yihiin calaamadaha iyo astaamaha lagu garan karayo xanuunkan PTSD-ga ama naxdintan iyo shoogan qofka baaqiga ku noqonaya markii dhacdo xun oo naxdin leh ay ku dhacdo astaamaha iyo calaamadahaas waxa ugu badan oo lagu gartaa waxa qofkii ku soo noqonaysa dhacdadii fikirkii ayaan madaxiisa ayaan ka baxaynin waxa la dhahaa flashback markasta qofkii maalin walba iyo habeen walba dhacdadii ku dhacday berigii hore ayaa ku soo noqonaysa madaxiisa hadday kufsi ahaan lahayd hadday ahaan lahayd rasaas madaxa yani rasaas u arkay hadday ahaan lahayd shil baabuur oo dhacay oo dadkii ay ku dhimanayaan hadday ahaan lahayd dad hortiisa lagu dilay dhacdadii ayaa qofkii madaxiisa iyo fikirkiisa ku soo noqonaysa qofkii markaa waxa uu ku jirayaa marxalad cabsi iyo baqi ayuu ku jirayaa arrintiina waxa ay noqonaysaa arrin madaxiisii aan ka baxaynin qofkii hurdada waa ka xumaanaysaa kalsoonida dadkii uu ku qabo oo dhan baa ka baaba'aysa go'doon buu dadka oo dhan uu ka noqonayaa waxa qofku markaas uu ku dadaalayaa keligiis in wax kasta oo dhacdadii xasuusinaya oo dhan inuu ka fogaado inaanu usoo bixin magaaladii inaanu usoo bixin dibadda usoo bixin لأنه هدي أصابه وحلا كل ما يا أرهن أما مناسبة حسوسين إسا دعوة دي إسا كود عادي شوق وكقاضي مركا قفكي سي أنا دعوة دي وحسوسين وحا وسمعنا يا دت كودن كودن بكنقونا يا قولي كسب بحمايو فاملي أما دت كود وانا لا فهم مايان إسا جينا كرسونة كوما قبضت كي وشيكتو قفك لكن وحا قولي وجرا وحا ويان in uu kaga dhuunto ama uu kaga gabado dhacdo xasuusinaysa dhacdadii isaga ku soo dhacday waxa dadka markaas badankooda ay sameeyaan cabsidaas waxay ku lifaysaa inuu qofkii uu ama mukhaadaraad u bayro ama waxyaabo kale oo iska xashiish iyo darooga ah uu ka raadiyo inuu kaga baxsado arrintan dadka xanuunkan ku dhaca aad iyo aad bay halis ugu yihiin in ay mukhaadaraad ay bartaan iyaga oo doonaya inay dhacdadii naxdinta lahayd ay isku ilowsiiyaan hurdo la'aan cadho fara badan iyo go'doonkaas ayaa inta badan lagu garan karaa qofka ay ku dhaco xanuunkanu inta badan ma doonto isagu mucaawino oo haddii uu soo baxo waxa uu ka baqanayaa haddii uu ka hadlo arrintii ama mawduucii ama dhacdadii inay naxdintii ay dib ugu soo celiso marka hadday kufsi ahaan lahayd iyo hadday dil ahaan lahayd hadday ahaan lahayd dhacdo kale oo qofka afduub ah qofkii wuxuu jeclaysanayaa inaanu dhacdadaas iyo mawduuc u dhowba inaan la soo hadal qaadin taasaana ka fogeynaysa qofkii in la caawiyo ama uu dhakhtarkii u tago ama uu faamiligiisii iyo dadkii u dhowaa uu qofkii inta uu kala sheekaysto uu yidhaaho arrinkaasaa jira waxaan doonayaa in arrintan laga caawiyo marka waa in lala fahmo in qofkan go'doonka ka noqday ama dagaalka ka yimi ama la dhacay ama la faraxumeeyey in xanuunkaas ay jiraan waa in lagu wacyigeliyo faamiliga iyo dadka ka agdhow go'doonka qofka uu gelayaa waxa weeyaan waxaanu ku dhici karaynin in dhacdadii uu ka sheekeeyo uu raadsado mucaawano uu raadsado taasaa markaa sababaysa inuu qofkii go'doon uu noqdo calaamadaha lagu garanayo xanuunkan PTSD-ga ama shoogga iyo naxdinta qofka ku hadhaya aad iyo aad bay u fara badan yihiin inta ugu muhiimsani waxa weeyaan qofkan oo madaxiisa aanay ka baxaynin iyo isaga oo ku dadaalaya wax kastoo xasuusinaya ama uu ku xasuusanaya inuu ka fogaado oo go'doon uu ka noqdo laakiin waxaa ka mid ah calaamadaha xanuunkan hurdo la'aan ama hurdo xumi cunto xumi qofka oo cadho fara badan yeelanaya qofka oo noqonaya qof markiiba ama gacan qaad yani sameeya ama dhaqso u cadhooda marar fara badanna waxa dhacda inuu qofkaas ama naftiisa u waxyeelo ama faamiligiisa u waxyeelo waa dhacdooyinka inta badan telefishinka aan ka maqalno ama kaga aragno
in askarta ka soo noqoto dagaalka ama ay iyagu isdilaan ama faamligooda ay dilaan ama dad kale ay dilaan marka waa xanuun miisaan culus leh oo qofkii dhibanaana dhib weyn ku haya faamligii iyo uu ka dhashay qofkuna ama xaaskiisa iyo caruurtiisiina culays fara badan ku leh marka cadho fara badan iyo dagaal uu qaado oo dadka kale uu ama dilo ama naftiisa wax yeelo waa wax ina ka mid ah xanuunkan waxa kale oo inta badan xanuunkan uu heliya xanuunkan loo yaqaan depressionka qofku markuu muddo sidaas oo kale uu xanuunsado waxa uu develop gareeyaa oo ku soo baxa depression farxaddu ay ka tagayso aanu wax dhaqdhaqaaq ama xarakaad aanu sameynaynin depressionkaas iyo xanuunkan inta badan way isku lamaanaysan yihiin waxa kale oo qofku uu leeyahay cabsidaas uu badan uu dareemayo waxa uu qofku jeclaysanayaa inuu mukhaadaraad isticmaalo si cabsidii iyo warwarkii iyo naxdintii ay uga baado marka inta badan dadka xanuunkan qaba waxa khatar u yihiin inay addiction wax la yiraahdo ama ay mukhaadaraad ay bartaan aad iyo aad bay u badan tahay calaamadaha iyo astaamaha imika aynu soo sheegnay dadka waaweyn bay u badan yihiin xanuunkanu caruurta uu ku dhacaa inkastoo sida dadka waaweyn uu ugu dhaco caruurta aan ugu dhacaynin tiro koob ahaan oo caruurta uu ku yaryahay haddana caruurta uu ku dhici karaa caruurta marka uu ku dhaco xanuunkan shoogga iyo naxdinta lihi calaamadaha iyo astaamahoodu way ka duwan yihiin dadka waaweyn oo caruurta waxaa u sii dheer caruurta inta badan waxaa lagu dareemayo lagu gartaa ilmihii iyo 10 jir ah ayaa habeenkii isku kaajaya caadiyan caruurtu kaadida saxarada waxay ceshadaan marka ay yihiin ilaa 3 jir ilaa 4 jir ilmihii 4 jirkiisii ilaa 10 jirkiisii aan isku kaaji jirin ayaa waxa uu ilmihii bilaabayaa inuu habeen walba isku kaajo waxaan filayaa hooyooyin badan oo daawanaya barnaamijkan inay xasuusan karaan ilmahooda oo sanado fara badan isagoo oo kaadida ceshan jiray aan isku kaaji jirin uu bilaabo inuu ilmihii isagoo 10 jir ah inuu isku kaajo habeenkii taas waa calaamad culus oo ka turjumaysa in ilmaha xiskiisa iyo maankiisa ay wax ku dhaceen waxa kale oo ku dhacda ilmaha oo calaamadooda ka mid ah dadka waaweyn ay kaga duwan yihiin in hadalka uu ama ku yaraado ama hadli kari waayaan ilmihii si fiican u hadli jiray markuu ahaa 6 jir 7 jir 8 jir 9 jir ayaa wuxuu ilmihii uu bilaabayaa inuu ama hadalkii soo yareeyo ama in uu kari waayo inuu hadlo marka calaamadahaas caruurta gaar ugu sii ah inta badan caruurta waxa uu keena xanuunkan bahdilka iyo jirdilka ayaa u keena laakiin astaamahan kale ee wixii ay ku soo noqonayaan cabsida ku abuuraysa way leeyihiin caruurtu waxa uu sii dheer uun kaayada isku kaajayaan iyo hadalkiiyo ilmihii uu ama yareynayo ama isagoo hadli karaya ayaanu awoodi karaynin hadalkii uu ka soo baxo calaamadahaas markaa caruurta gaar ugu ah xanuunkan PTSD-ga ama shoog iyo naxdinta ilmuhu ka qaadayo dhacdo naxdin leh oo uu arko intaas hadeen kaga gudubno calaamadihii iyo astaamihii xanuunkan PTSD-ga oo dadka waaweyn iyo caruurtaba ah waxa iyana muhiim ah inaynu ogaano baadhista iyo dad inta badan uga siiro dadka kale in ay xanuunkan uu ku dhaco xanuunkan marka la baariyo waxa loo baahan yahay dhakhtar psychiatrist ama psychologist inuu qofka uu wareysto si fiican intake looga qaado dhacdadii qofka soo martay waxyaabihii waxaan ku soo noqonaya sawirka madaxiisa aan ka baxaynin marka taas la ogaado ayaa wala eegaya in 3 calaamadood qofkii ay baaqi ay ku noqdeen oo maalin walba qofkii 3 calaamadood uu ka cabanayo to koobaad waxa weeye dhacdadii ku dhacday qofka ama dil ha noqoto ama kufsi ha noqoto ama aftuub ha noqoto in dhacdadii ay qofka madaxiisa iyo fikirkiisa ay dib ugu soo noqonayso talabaad waxa weeye in qofku waxa yiraahdo flashback uu leeyahay oo dhacdadii ahayd مثلا 5 sano ka hor ayaa qofkii imika waxa uu dhacaysa ka annama dhacdadii ay maanta ku dhacayso oo kale waxa kale oo calaamada saddexaad ay tahay in qofku uu develop gareeyay ama uu yeeshay in uu ka dhuumanayo ama ka cararayo ama uu wax allaale iyo wixii xasuusinaya dhacdadii oo marka qofkii uu noqonayo qof mujtamacii iyo magaaladii iyo meeshii uu ku noolaayo dhan ka noqonayo go'doon
go'doon wuxuu uga noqonayaa si aan marquna aan u arkin ama u maqlin ama ka hor imanin arin xasuusinaya dhacdadii ku soo dhacday marka qofku waxa uu kaliya uu dareemayaa inuu safe yahay ama nabadgeliyo uu ka dareemayaa inuu go'doon ka noqdo haddii qofka lagu arko dabeecadaas uu wax walba ka leexanayo wax walba ku dadaalayo inaanu la kulmin wax xasuusiya dhacdadii oo marka go'doon uu ka noqonayo iyaduna waa calaamad kale oo lagu garan karayo iyo calaamadahan kale ah hurdo xumida cunto xumida carada faraha badan leh intaas marka uu ku arko dhakhtarku sawirkaas uu ka qaadanaya in qofkii uu qabo xanuunkan PTSD-ga ama naxdinta iyo shooga qofka baaqiga ku noqonaya marka dhacdo naxdin lihi ay ku dhacdo waa hagaag haddii inta kaga gudubno calaamadihii iyo astaamihii iyo waxyaabaha lagu garanayo waxaa jira dad uga dhow dadka kale xanuunkan inuu ku dhaco dadkaas uga dhowey inay xanuunkan uu ku dhaco waxaa ka mid ah dadka had iyo goor ka shaqeeya meelaha khatarta ah dadka waxaa ugu horeeya misaal ahaan bilayska oo kale qofka bilayska ah ee suuqa maraya mar walba waxa uu arkayaa dad ama dagaalamaya ama meel la dhacay ayuu qofkii uu tegayaa marka shaqaalahan ka shaqeeya meelaha khatarta ah ambalansiyadu ay ka mid yihiin bilaysku ay ka mid yihiin shaqaalaha kale waxay aad iyo aad uga dhow yihiin inay maalin walba ay la kulmaan dhacdo khatar ah oo naxdin leh oo ama qof lagu dilay ama qof uu dhiig baxayo in uu qofkaas ama shaqaalaha ambulanska ah ama bilaysku ay la kulmaan marka qofka ka shaqeynaya xafiis caadiya way uga dhow yihiin in shaqa maalmoodkeedu uu maalin walba uu la kulmayo dhacdooyinkaas khatarta ah marka dadka ka shaqeynaya meelaha khatarta ah bilayska shaqaalaha ambulanska shaqaalaha caafimaadka intuba way uga dhow yihiin dadka kale in ay la kulmaan in xanuunkan ay qaadaan PTSD-ga waayo shaqadoodii baa waxay ku tacalluqdaa oo ay ku saabsan tahay marxalado khatar ah oo dil iyo dhiigbax iyo cunfi ay la kulmayaan waxaa kale oo ku jira dadka uga dhow dadka u dhow in xanuunkan oo kale ay qaadaan dadka maalan yaraantoodii ama lahaan jiray xanuun mental disease xanuun dhimirka ah qofku haddii uu markii hore uu lahaan jiray xanuun dhimirka ah oo ama depression ah ama schizophrenia ah ama xanuunadan dhimirka ah wuu uga sii sahlan yahay markuu dulqaad badan ma laha xamilaad badan ma laha haddii qofka caynkaasi hore dhimirka uga xanuunsanayay uu la soo kulmo dhacdo naxdin leh markiiba waxa ku dhacaya xanuunkan waxa kale oo xanuunkan markiiba uu ku dhacaa dadka aan lahayn social support dadka aan lahayn dad caawiya ama family ama asxaab aan lahayn qofku haddii uu keligii iska yahay oo aanu lahayn family support ama social support aanu lahayn isaguna dadka kale wuu uga nugul yahay waa uga dhow yahay in xanuunkan uu ku dhaco dadkaas dadka aan soo sheegay oo dadka aan lahayn ama horey xanuunka dhimirku uu qabay ama aan lahayn difaac fara badan way uga dhow yihiin marka xanuunkan uu ku dhacana inta badan waxaa calaamadihii iyo astaamihii aan soo sheegnay oo dhan waxa ugu sii weeriya inuu qofku had iyo goor noqdo qof digtoon iyadoo aan loo baahnayn oo aanu meel khatar aanu marayninba waxa iskaga taagan digtoonaan baa iskaga taagan haddaad maalan loo yeero oo kale ama hadday wax soo agmaraan si qayra caadiya ayuu u naxaya marka wuu boodayaa haddaad magaciisa xataa ugu yeedho waa qofku aad buu u naxaya waanu boodaya naxdintaas iyo boodistaas qayra caadiga ah qofkii uu marka loo yeero oo kale uu leeyahay waa astaamaha iyo calaamadaha ay leedahay xanuunkan uu leeyahay haddaynu intaa kaga gudubno astaamihii iyo calaamadihii xanuunkan PTSD-ga ama naxdinta iyo cabsida baaqiga qofka ku noqonaysa marka uu dhacdo naxdin leh uu la kulmo waxaynu usoo gelaynaa daaweynta xanuunkan PTSD-ga daaweyntiisu aad iyo aad bay u fiican tahay dad aad u fara badan baana kaga bogsada daaweyntan xanuunkan haddii qofka xanuunkan aan laga daweynin oo qofku uu sidaas oo kale go'doonka u ahaado dhibaatooyin fara badan baa caafimaadkiisa xagga dhimirka iyo maskaxda wax weyn baa u dhimaya waxaanay sababaysaa inuu ama uu isdilo ama dadka uu dilo ama familigiisa xaaskiisa caruurtiisa uu dilo ay marar badan ay sababtaa
haddii laakiinse la daweeyo ilaa 80% calaamadaha oo dhan iyo dhibaatada oo dhan way ka yaraanayaan. xanuunkan markaa waxa marka hore lagu daweeyaa waxyaabo la yiraahdo psychotherapy ama talk therapy la yiraahdo oo qofkii dhakhtar psychologist ayaa siinaya casharo iyo hadallo iyo waano ayuu siinaya kadibna waxaa la siinayaa muddo dheer oo usbuuciiba har mar ah ama 2 jeer ah ayaa waxa qofkii lagu sameeyaa psychotherapy-ga oo ha ku adkaato dhacdadii qofka uu soo maray ee xanuunkan u keentay ayaa iyadoo oo live ah laakiin uu la joogo dhakhtarkii ayaa looga sheekeynaya isagii baa la oranaya la tusaya ama sawir ahaan baa loo tusaya marka qofkii lagu celceliyo maalmaha hore way ku adkaanaysaa laakiin marka dambe way ka soo yaraanaysaa xanuunku ka soo yaraanaya markii muddo dawooyinka la siiyo oo loogu daro dawooyinka loo leeyahay antidepressants iyo dawooyinkan ama xiska dejiya ama lagu seexdo qofkii dawada markay intaa u socoto bil ama 2 calaamadihii oo dhan waa ka soo yaraanayaan fakarkii aha ku soo noqonayay madaxiisa ee dhacdada iyo life uu arkayay way ka soo yaraanaysaa haddii dawadaas markaa u socoto 6 bilood ilaa sanadna way ka baxayaan fakarkii oo dhan طبعا ما ilaabayo dhacdadii ku dhacday qofka laakiin ku soo noqoshadii ay fikradu isagoo oo qofkii aan xukumi karin ku soo noqonaysay ayaa ka yaraanaysa marka dambana qofkii ilaa iyo 80% nolol caadi ah ayuu ku soo noolaan karaya maanta barnaamijkeeni PTSD ga post traumatic stress disorder ama shock iyo naxdinta qofka ku dhaca markuu dhacdo naxdin la kulmo intaas aynu ku soo gabagabeynaya